Tani waa qiso cibro qaadasho leh. Waxaan ka hadlaynaa aabbo waayeel ah oo owlaad Ilaahay siiyey, owlaadiisii u weynaatay, kala guursadeen. Waxaa isku soo haray asagii xaaskiisa oo qof weyn ah. Meeshay ku wada noolaayeen waxaa u shaqay jirtay qof shaqaale ah. Muddo ka bacdi waxaa dhacday in ay odagii xaaskiisii ka geeriyootay. Markii xaaskii ka geeriyootay, wuxuu odagii ku fikiray inuu wiilashiisii qof ka mida uu la noolaado. Wiilkiisii ugu weynaa ayaa aabbihii soo doonay, asigoo isdhahaayo adigaa ugu weyne wiilasha yaryay kaa wadin. Aabbihii halkaas wiilkii weyn gurigiisa ayuu ku noolaay. Waxaa dhacday muddo. Aabbaha waa qof iska waayeela sida caadadaba ah. Guriga dhexdiisii ayuu iska dhex dawaafaa. Halkaan waa maxay, intii maxaa la geliyay, saa maxaa loo yeel, kan maxay tahay. Xaaskii wiilkii qabay ayaa aabbihii karahday. Waxay doodeen dood ka bacdi waxay dhahday aabbaha bannaankaas aan dejinno qolka ah. Gabar shaqaala qol ay deganadoo bannaanka ayaa aabbihii loo hagaajiyey. Sidii ay isku raaceen, aabbihii wiilkiisu u yimid. Aabbo wuxuu yidhi qolkaas ayaan kuu hagaajiyey, kuu neecaw badan, kuu fiican, balka waran halkaa haddii aad iska degtid. Aabbihii wuu fahmay sheekada meesha ka socoto, wax dooda iyo midna muusan gelin. Wuxuu yidhi waayaha wiilkaygiiyow, maadaama uu wiilkiisa diyaariyey muxuu ka qaadi karaa. Aabbihii meeshiyuu degay. Meeshii uu aabbihii ku noolaay wiilka maalin laba maalin oo mar soo booqa jiray. Waxaa dhacday inuu wiigii mar soo booqdo. Xaaskana caag yar oo balaastiga ayay cuntada gabadha shaqaalada ugu dhiibi jirtay. Halkaas ayaa saxankaas ay cuntada loogu geeyaa. Odayga guriga qof kama hagaajiso, habeenkii casho looga soo qaadaa. Raashinkii ayaa meesha qolkii uga uray. Qof qolka ka hagaajisa ma leh. Muddo ka bacdi aabbihii wuu iska geeriyooday. Markuu geeriyooday ayaa waxaa dhacday tacsidii marka laga soo laabtay inuu wiilkiisii qolkii tegay si uu u soo hagaajiyey, alaabtii uga soo qaado, si oo hadhowdii gabadhii shaqaalaha qolkeedii loogu celiyo. Meeshii ayagoo asaga ka shaqayhayo, alaabtii wax walba qaaqaadayo, ayaa wiil yar uu dhalo oo 9 sano ku beegan meelahaas jiro ayaa la joogay. Ayaa wuxuu ku soo booday saxankii uu awowga cuntada ku cuni jiro oo meesha yaallo dafiiri. Xabadkii uu gashtay. Markuu xabadkii gashtay wuu la yaabay. War maxaa ku suubee saxankan? Aabbow may kan anaa u baahan. War iska tuur. May aabbow kan anaa rabo. Maxaa ku suubee? May aabba waa u baahanahay. War iska tuur. May aabbow markaan aniga weynaado ayaa adiga cuntadaada kuugu ridaa. Wallaahi saasuu dhahay. Aabbihii qalbigiisii ooyin ou la fugday. Muraaru dallaac qalbigii ayaa ka jabay. Maxay nadaamo iyo shalay ay tagdaa maanta maxay tiri? Waa taas waa soo daahday. Nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi laba dembi way soo degdegaan, adduunyada ayay ku soo degdegaan. Waa dulmiga iyo caasi waalideynimada. Walaalayaal, taasi waa inoo cibro, waa inaan ku cibro qaadanaa oo waalidka baari loo noqdaa oo ilaahay looga baqaa dartiis oo ilaahay asigaaba quraankiisa ku yiri